marka hadba ku celcelintaadu intay tahay ayaa kaydkaaguna noqonaya min culimadii kamida ayaa waxa weeye loo yimi waxa la yiri waxaanu doonaynaa kitaabka khaliil la yiraahdo inaad noo dhigto waa kitaab fiqiga maalikiyada kamida waana matni aad u adag oo minhaajku daa u biyo noqonaya marka loo eego aad u adag matniga khaliil oo quful xidhana ayaa la doonayaa inuu sharxo caadaduna waxay tahay sheekhu hatta haduu matniga xifdisan yahay shuruuxdiis iyo shuruuxda xawaashideed iyo xawaashida taqriiraadkeeda ka sii dhashay waxaaba inuu isku furto kadibna waxa kale hufa caadadu tahay min sheekha baa loo yimo oo waxa la yiri waxaan doonaynaa kitaabka inaad noo dhigto fadal buud bilow kitaabkiisu ardayga la soo kala baxay wuxuu arkay sheekhiyo waxa weeye awrtii waraabinaya waxa weeye ceelkii uu wadaanta u tuurtaa dabaadna wuxuu ugu shubaa awrtiis ardaygu wuxuu siraa hawshan ay ka dhamaato sheekhu meel kale ku maqay markuu xoogaa shaqadii waday uu sheekhu uu soo eegay wuxuu maxaad u bilaabi weyd wuxuu sheekhu adiga mashquulsan waxa sheekhu waa ku soo jeesto soo daawo wuxuu jumladii ugu horeysay baan siiyay kadibna oo ka soo qaaday sharax aan dhamaanayn matnigana waa haya shuruuxdana dushu ka haya xawaashidana waa haya taqriiraadkana waa haya kalmadi kaga khaldaymayso waxaad moodaa kutubtu inay u furan tahay inta soo baabu ka gaarsiiyay isagoo geelisa waraabsanay kadibna waa soo wada noqdeen awrtiisi isagoo watay dhaankiis ayaa oo la lugaynayo ayuu cilmiga u sharxay ardaygii baa yaaba waxa uu sheekh sidaad halkan ku gaadhay wuxuu ri kalmad walba inta soo kuno jeer baan ku soo celceliyay inta soo kuno jeer ayaa ku soo celceliyay ilaa uu noqday xifdi la hubo